waxa weeyaan anigu aan fikrad u lahayn badan ayaa ilaahay ugu alhaamiyo buuraha inta inagu wareegsan yaan god miidan dhagaxii aan israaho dhagaxaasi waa dhagax waxaba iyo ciriqyadiisa ayaan qodi jiray muddo dheer baa la oran jiray wallahi waa kan ku waashay dhagaxan waa qtaa dheer ee saab dheeran baaqibigeedu waa safiirkiiba ku jira rubigiiba ku jira waa macdan qoda ku nool deegaan caan ku ah macdanta oo lagu magacaabo Fiqi Ayuub taasi oo ka tirsan gobolka Togdheer walow aanu aqoon u lahayn haddana 30 sano oo uu buuraha ka raadinayay macdanta waxa uu noqday qofkii u horeeyay ee deegaankan ka hela jeerka ugu badan yahay iyo taa inagu xigto oo iyana moqorgaalaad leh walaal magacayga wax la yiraahdo cilmi aadan qayre waxaan ku noolahay degmadan Fiqi Ayuub muddo dheer ayaan dhagaxan macdanta waxa la yiraahdo jamstone haday tahay iyo jeer haday tahay dahab haday tahay muddo dheer baan anigu aan maaragtay marka fikrad badan u lahayn ayaan daba joogayo aan meel walba godad iyo hawlaha aan ka wadi ugu dambeyntii waxa aan muunadaha gobolada Hargeysa meel kasta aan u diray muddo iminka ay ka dambeysay 4 sano ayaa waxa uu noo soo baxay iibkiisii ugu horeeyay muddo dhaweyd oo iminkaas 3 sano iyo meelahaas ay ka dambeysay yaa la yiri waxa la wareegaya wasaaradda macdanta iyo tamarta hase yeeshee anigu walaal markii aan halka wasiirkii la bedelay iminka ee macdanta iyo tamarta iyo agaasimihiisu waxay igu xaqireen xuquuqdii aan lahaa ayay igu xaqireen waayo dee qofka macdanta hela waajib buu iska leeyahay waajibkii aan lahaa imay marinini iyadoo lagu jiro xilli adag oo abaareed dad badan ayaa macdanta ka qota buuraha deegaankani kuwaasi oo noloshooda ku dabara dhagaxan ayaa ah dhagax loo yaqaan jeen kaasi oo ah macdan aad u qaali ah isla markaana laga helo magaalada Fiqi Ayuub oo ka tirsan gobolka Togdheer marka la soo qaado dhagaxa macdanta isla markaana ay buurta ka soo qaadaan dadku waxay keenaan halkan oo lagu miisaamo isla markaana lacag loogu celiyo dadka oo abaari ku dhacday oo dadku beerka dhulka ku hayo ayaa ilaahay noo keenay iibka u horeeyay deegaankan balaaran oo dul iyo daaf bale waxa weeyaan ilaahay wuxuu uga dhigay shimbir waxaan ku yiri war guurtigii deegaanada subaxa oo aniga aragga waxa iigu qoraysaan ii sameey filis baa la iga qoray kiiloogi guura macdanta deegaankan inkastoo bulshadu ay ku baraarugtay haddana waxa jira baahi caqabadaha haystana waxa kamid ah toolaji aan qalabkii haynbana fanni kasto ay leedahay oo macdanta mid walba ciriqa uu ku jiro iyo halku maro iyo muunadihiisa dabadeed intaba waan garanayaa laakiin waxa iga dhiman qalabkii aan ku soo saari lahaa ee deey fududayn lahaa halkaasaan ku miisaanaa macdanta ayaa ceegaagta deegaano badan oo ka tirsan Somaliland balse dalal shisheeye ayaa ka faa'iideysta شعيب حسن دارة هوم كيبل تي في تقبل Fiqi Ayuub gobolka Togdheer abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus